maamulka degmada Kismaayo ayaa waxa ay soo qaban qaabiyeen tababar ku saabsan sidii canshuuraha looga aruurin lahaa xaafadaha ku yaala magaalada Kismaayo waxaana tababarkaasi ka faa'iideysanayay dadkii ka shaqeyn lahaa sidii canshuuraha looga aruurin lahaa xaafadaha ku yaala magaalada Kismaayo. tababarkani ayaa waxa iska kaashanayay wasaaradda maaliyadda iyo degmada Kismaayo waxaana ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajile. aragna marka in la dadaalo la dhaga fududaado degmada inaan ceebin waa iman shaqadaas waliba muddada ugu gaaban lagu soo gabagabeeyaan rabnaa. kullihii la tirakoobay 20 kun oo guri bay tirakoobeen oo la mar la siiyay waa la dhigayaa meel walba waxa la dhigayaa liiskii tirakoobka 20 kun annagu waxaan misanahay magaalada ama ka badanta laakiin 20 kun qoladii tirakoobka sameynaysa inoo diyaariyeen muddada inta ka la dhisay baa hadeer xisaab badan keenaysa. waxaan rabnaa marka inagu guri kasta oo magaalada ah cashuur baa laga qaaday sida loo cashuurayo waa la bari waxa laga qaadayo waa la baray farsamo kasta waa la bari boolis baa idin la joogi doona waxa la rabaa marka shaqada inaan diyaar garowdaan. sidoo kale waxaa dhankiisa ka warbixiyay kana hadlay tababarkani agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Kaamil Yuusuf. waxaa tababarku idinku socon doonaa meeshaad ku shaqaynaysaan haddii la yiraahdo qof walba technicalka tababarkan bixinaya waxay si joogto ah labada bari soo socda ay wali idinkula sii shaqaynayaan goobaha aad joogtaan wixii khaldama wixii idinka maqan cilada soo kordha xalinteeda iyo hubinta inaad shaqadii la jaan qaadeen labada bari soo socda shaqana way noqon tababarkiina way idin sii socon. shaqaalahan goob walbood ku shaqayn doontaan waxaa wada fadhiya dhowr xubnood oo xarunta degmada qaybi ka socdaan oo xaafadaha markaa lagu shaqaynayo waxyaheeda ay qaybi ka socdaan wasaaradda maaliyadda ay qaybi ka socdaan iyo booliiskii amniga ilaalinaya baad ka koobnaan doontaan qaabkaad wada shaqayn doontaanna waa laydin barayaa. waqti badan oo dheer anagu idinkama sii qaadanayo oo maantay qaybaha tababarku idin socday badan oo kamid ah waan idinla joogi doonaa haddii la yiraahdo. kaliya fariintaan bixinay waxa weeye furitaan kadib sida in badan dhacda iyo dhicin in la fureedsado cashiradaad baran doontaan oo qof maqnaado oo qof iska baxo oo howlka la cileeyo oo bari caqabadaasi ay shaqadaadii ku soo laabatay aysan dhicin. wufii doonaada cashirada baxaya la socda su'aalaha shaqadiina bariidin ku iman doona weydiiya shaqada qabanaysaan shaqo culus weeye. canshuurta guryaha ama canshuurta hantida maguurtada wali Jubbaland maysan dhaqan gelin waa markii koowaad waa. sidoo kale madasha waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland Saleyman Maxamed Maxamuud. canshuurtu waa waxqabadka deegaanka iyo dowladnimada sidaas la aligeed intiina meesha isugu timid 100 qof ka kooban nin walba waajibaad buu yeelan doonaa waajibaadkiisa inuu ka soo baxaa la rabaa. waxaa meesha isugu nimid hadda maxaa tiraahdaa workshop ama seminaarkan isugu nimid in la idin baro qaabkaad idinku aad wax ku samayn lahaydeen. qofku marka uu shaqada qabanayo marka hore waa inuu shaqadaas gartaa asagoo shaqada aqoonteeda leh bartay waxa maxaa tiraahdaa shaqada uu leeyahay iyo shaqada uusan lahayn markaasuu shaqo qaban karaa. sidaas la aligeen waxaan idin farayaa aan maxaa tiraahdaa aan idinku wacyi gelinayaa ama idin sheegayaa nin walba inuu iska dhigo hawsha inuu asagu leeyahay. shayga haddaad adigu leedahay lix jecle ayaa kugu abuurmaysa laakiin haddaad u sheegtid in adigu aan lahayna meeshaas waxaa ka imaanaysa bayla. Cabdi Khadir Abdullahi Abukar Carlson TV Kismaayo.